daawadayaal ii dhageystaan meel walba adduunka joogtaan kusoo dhawaada wararkii oo anigoo ah wariye cabdinaasir maxamuud xaaji axmed gujufa idin akhriyo warkii oo kooban رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماكة أيام أنت جاري مجالد الجروي عاصمة مامل قبلات كبودلان عمر عبد الرشيد أيام حالي كوهيدي مجالد عداد مامل قبلات كقلمود خالكاسي وكل مي مدح وينها قلمود عبد الكريم حسين قليل أسيو كلا هذي سيدي دجال كقال كعي لوجودين لها لنا كلا قاضي لها عيد مضى يصير فريع حسيا رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد أيام markii ka degay garoonka diyaaradaha ekonomika ee goboleedka Garowe waxa uu kulan kooban ilaa yeeshay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayadoo markii dambana Cabdiweli Gaas ka dhoofay garoonka una duulay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay inuu u yimid Garowe sidii uu waan ugu dhex bilaabi lahaa labada dhinac si loo joojiyo dagaalka gaalkacyo haweeneydii ugu horeysay ku guuleysata kuraasta aqalka sare Zamzam Daahir Maxamuud ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ku guuleysata xubin aqalka sare Soomaaliya kadib markii musharaxa kale ee tartamaya uu ahaa Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur isaga haray tartanka musharaxnimada aqalka sare gabadhan ayaa waxa kamid ahayd xubnaha u tartamayay doorashada aqalka sare doorashadan ayaa ka soconaysay magaalada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa sidoo kale ku guuleystay kursiga aqalka sare Yuusuf Biile Ugaas oo asigana noqday shakhsigii afraad ee ku guuleystay xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya u matali doona Galmudug musharaxa ugu horeeyay ee kursiga aqalka sare ku guuleystay ayaa noqday Abshir Bukhari oo sidoo kale kuraasta kale aqalka sare waxa ku guuleystay Janaal Cabdi Qaydiid Cabdi Maxamed Buxlow wali waxa ka sii soconaya magaalada Cadaado doorashada kuraasta aqalka sare iyadoo ay ilaa 5 xubnood ilaa haatan la xaqiijiyay inay ku guuleysteen aqalka sare halka wararkan kala socotaan waa idaacada Radio FM 99 iyo live screen-ka kusoo dhawaada wararka arrimaha dibadda ugu yaraan 200 kamid ah madaxda caalamka ayaa gaaray heshiis taariikhi ah oo ku saabsan hoos u dhigida xaqiiqa hawada laga sii daayo kaasi oo ka qayb ah dadaalada lagu jiro in wax laga qabto isbedelada cimilada dunida heshiiskaasi ayaa maanta lagu dhawaaqay magaalada Kigali ee dalka Rwanda xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid taariikhi ah madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku jawaabay dhaleecayn kaga timid xaaskiisa oo yiri xaasku waxa inay ku ekaataa howlaha jikada asigoo booqasho ku jooga dalka Jarmalka ayaa ku yiri ma garanaya xisbiga ay xaaskiga ka tirsan tahay balse waxaan ogahay inay ka tirsan tahay jikada iyo fadhiga iyo qolkiga kale asigoo dhalo cadeynaya ayaa hadalkaasi ku yiri in xaaskiisa iyo mucaaradka oo ka khibrad badan yahay maadaama uu ka soo tartamay musharaxa dalka 3 jeer markii afraadna ku guuleystay wuxuu barbar hadlayay haweeneyda ugu awooda badan dunida ahna hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa jaleecday dhinaciisa markii hadalkaasi ku dhawaaqay waxa intaas ku dhan warkii dunida oo anigoo ah Cabdinaasir Kujufa idin akhriya inta aan ku kulmi doono war lamid ah wararkan nabadgelyo